goolhayayaasha shabaqooda ilaashaday kulamada ugu badan horyaalka Premier League sanadka 2023 oo la soo saaray Tottenham oo ku dhow saxiixa xiddig u ciyaara kooxda Chelsea iyo Barcelona oo Mason Greenwood ku soo jiidanaysa qorshe la yaab leh. Haddaba muxuu yahay qorshahaasi? dhammaan amurahan ayaan kugula wadaagi doonaa muuqaalkan ee soo dhow daawade, balse markuu relaxar muuqaalka sina share kare waadna ku mahadsan tahay la socodka iyo la jaanqaadkaaga mar kasta. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo bir oo qayb nagala qaado qurxinta muuqaalka adigoo follow gareynaya boggeena Kulmis Channel si aad u hesho warbixinada ciyaaraha kubadda cagta. mahadsanid. waxaa la marayaa maalmihii ugu dambeeyay ee sanadkan 2023 iyadoo la soo saarayo xogaha kala duwan ee tan ilaa bilowgii sanadkan la diiwaan geliyay. hadda waxaa la soo saaray goolahayaha ugu shabaq ilaalinta badan sanadkan sii dhamaanaya ee 2023 waxaana booska koowaad ka soo muuqday goolahayaha kooxda kubadda cagta Liverpool Alisson Becker oo shabaqiisa ilaashaday kulamadii ugu dambeeyay horyaalka Premier League sanadkan sii dhamaanaya 2023 tiro 16 jeer ah ayuuna shabaqiisa ka ilaashaday gool goolahayaha Brazil ee Alisson Becker. booska labaad waxaa ku jira goolahayaha kooxda kubadda cagta Aston Villa Emiliano Martinez kaas oo shabaqiisa ilaashaday 12 kulan ilaa haatan sanadka sii dhamaanaya 2023. booska saddexaad waxaa ka soo muuqday goolahayaha kooxda Arsenal David Raya ka oo shabaqiisa ilaashaday 12 kulan sanadkan sii dhamaanaya 2023 isagoo u soo ciyaaray laba kooxood oo kala duwan waana Arsenal iyo Brentford oo milkiyada laacibkan iska leh. waxaa booska afraad ku jira goolahayaha kooxda Everton Jordan Pickford kaas oo shabaqiisa ilaashaday 11 kulan sanadkan sii dhamaanaya ee 2023. goolahayaha ku jira booska shanaadna waa goolahayaha Fulham Fernando Leno ka oo shabaqiisa ilaashaday 10 kulan sanadkan sii dhamaanaya 2023. shantaasi goolahaye ayaa iyagu noqday goolahayaasha ugu shabaq ilaalinta badan sanadkan sii dhamaanaya 2023. dhanka kale naadiga Tottenham ayaa wada hadallo kula jirta kooxda Chelsea si ay u dhameystiraan saxiixa xiddiga qadka dhexe ee Conor Gallagher. Tottenham ayaa doonaysa inay Conor Gallagher ku xoojiso qadkeeda dhexe qaybta dambe ee xiliyaareedka. sida ay sheegayaan wararka haatan soo baxaya, Tottenham ayaa wada hadallo kula jirta Chelsea si ay u dhameystirto saxiixa laacibkani. saxafiga caanka ah ee Di Marzio ayaa sheegaya inay Chelsea iyo Tottenham ku jiraan wada hadallo si ay u heshiiyaan saxiixa laacibkani qadka dhexe ka ciyaara. kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay xiddiga Conor Gallagher ku qiimeyso lacag dhan 60 milyan oo euro si ay u iibiso laacibkan qadka dhexe ka ciyaara. dhinaca kale wargeysyada Ingiriiska ayaa soo saaray wax lala yaabo oo ku saabsan rabitaanka kooxda Barcelona ee ah inay hesho adeegka mid ka mid ah ciyaartoyda amaahda uga maqan kooxda kubadda cagta Manchester United. wargeyska Ingiriiska ka soo baxay Edison ayaa saacado ka hor sheegay in Barcelona ay doonayso inay la soo wareegto saxiixa Mason Greenwood kaas oo hadda u ciyaara kooxda Getafe ka ciyaarta horyaalka waddanka Spain ee La Liga. Mason Greenwood ayaa ku guuldareystay inuu u ciyaaro kooxdiisa Manchester United kadib markii uu ku lug lahaa kiis kufsi waxaana uu xiddigu muddo dheer uu ka maqnaa kooxda kubadda cagta Manchester United. kadib dhacdadaasi xiddiga reer England Mason Greenwood ayaa la filayaa inuu si toos ah uga tago kooxda Man United waxaana uu xiiso ka helayaa kooxda kubadda cagta Barcelona. kooxda Barcelona ayaa doonaysa inay la wareegto xiddiga Greenwood kadib qaab ciyaareed cajiib ah oo uu qaadanayo horyaalka waddanka Spain ee La Liga gaar ahaan kooxda Getafe oo haatan u ciyaarayo. isla wargeyska ayaa warinaya inay Barcelona doonayso inay xiddiga Greenwood ku soo jiidanayso lambarka 10 si ay u hesho laacibka reer England ee Mason Greenwood.